wax rabay inaan kula wadaago laba arrimood oo haddii aad asaas ka dhigato wax badan insha Allah aan ku rajeynayo in Ilaahay kuu sahlo. Arrinta horeysa waxa weeyaan haddii aad faraxsan tahay iyo haddii aad murugaysan tahayba ballanqaadka badan iska ilaali. ballanqaadkaad bini'aadanka la gelayso ama ballanqaadkaad naftaada la gelasaba ha isku badin. ballanqaadka badan iska ilaali. kolba hadduu maskaxda ogayahayna hawla sugayso wax badan buu jirkaaga u dhimayaa. yaa maskaxdii og in hawla sugayso fokuskaa ka yaraada, hurdadaa ku yaraata, stress marba ku jira. kolba haddii aad nolosha wax ka damacsan tahay tartiib wax iskaga qabso, ballanqaadka ha isku badinin. waa haddii aad doonayso habeenkiina hurdo raaxa la seexato, aroortii aad ku soo toosto adigoo fresha oo halka arrin amba labada arrin eed ka dhigatay hawshaada maanta inaad wax qabsato si degan oo xasiloon aad u qabsato. marka nafta ka ilaali ballanqaadka badan. bini'aadanka aad la macaamilayso ka ilaali ballanqaadka badan. waxaad qabataa waxaad hubtay inaad gaari karto. waxa la hubay la gaari kana maxay tahay? waxa la hubay la gaari karo waxa weeyaan waa halka shay eed focus ka saarto eed ku dhammaynayso usbuuc, eed ku dhammayn karto bil, eed ku dhammayn karto sanad. markaad arrinkaas soo xaliso wax kale waad u gudbi kartaa markaa insha Allah. arrinta labaad aan rabay inaan kula wadaago waxa weeyaan maalinkaad wax gaadho wax kale ku xigsi. maalinkaad wax gaadho wax qabad kale ku xigsi. waxaa jira dad 10 shay 10 arrimood mar kaliya intay bilaabaan aan dhammaystirin. waxaad arkaysaa dad hawlaha isku badiya oo 3 ilaa 10 shay mar kaliya intay bilaabaan haddana aan dhammaystirinin. waxaad arkaysaa qof arrin ku dhaqaaqay dhexda kaga hadhaya, haddana arrin kale ku dhaqaaqay dhexda kaga hadhaya, haddana arrin kale ku dhaqaaqay dhexda kaga hadhaya. FC plan B baa la dhahdaa dadka. mar walba waa dad plan B ku talagalay, ku seexanaya habeenkii. arrinta haddii kuu hirgeli weydo waxaan kala fikirkan kale madaxa ku haysay ayaad ku dhaqaaqi. marka mar walba dad plan B ku jirtoon plaankaagii u horeeyay ayaana de hirgelayn markaa. marka taladan aan ku siinaya waxa weeyaan wax qabadkaaga hore markaad dhammaystirto ku xigsii wax qabad kale. 10 shay mar kaliya ha bilaabin. kama hadlayo nolosha daruuriga oo tahay saaka markaad ka kacdo sariirtaada inaad sariirta giijiso oo quraac samaysato oo naftaada nadiifiso. taasi waa normal weeyaan. waxyaalahaas waa waxyaalo daruuriya oo asaasiya oo qofka bini'aadanka aad ugu fudud inuu qabsado. taasi waa normal weeyaan. arrinta ka hadlaya waxa weeyaan waa qorshayaasha waaweyn ee noloshaada doonayso inuu u noqdaan rukuno oo noloshaada wax hadisato oo wax qabsato. waa arrimaha waaweyn. wax weeyaan business buu noqon karaa halka caafimaadka inaad maanta istiraado in cunto tayo laan samaysanaya haddii jirkaygan hagaajinaya oo dhisaya. taas laftigeedu waxay u baahan tahay inaad isteebiyo u marto mar kaliya wax isma bedelaan. markaan waxaan ka hadlayaa qorshooyinka waaweyn 10 arrimood oo istaba yaacaya oo isaga yaacaya mar kaliya ha bilaabin. hal shay markaad dhammaystirto arrin kale u gudub. markaad taa dhammaystirto arrin kale u gudub. waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan waa qorshooyinka waaweyn weeye. maaha waxyaalaha baasiga ee nolosha ka tirsan inaad saaka subaxda kacdo ood meydhato ood quraacato ood labisato. waa arrimo isaga yaacayo ood qaban karto. taasi kama hadlayo. waxaan ka hadlayaa qorshooyinka waaweyn ee noloshaada rabta inaad ku dhisto, mustaqbalka aad rabta inaad gaadho. haddaad doonayso inaad wax hirgashato plaanka ugu horeeya eed la timaado ku dadaal inaad dhammaystirto. yaa FC plan B ha noqon. dadka intay wax bilaabaan markay wax ku yar adkaadaan dhexda kaga hadhaya. dadka markay wax asaasaan markuu adayga noloshu ay la kulmaan dhexda kaga hadhaya. marka qofkaasi muxuu ku talagalay albaab kale ayaa u muuqda mar hore ka fikiro isleeyahay tana kaaga fudud. haddaad fudaydka u horeysa wax lagu dhaqaajinayo ku talagasho adaygiisana ku talagal.